kulanti waxaan wanaagsan dawadayaal ilaantiinba meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan diiradda ku saari doono Cabdisalaan Maxamuud Shire oo markaasi ah wariye aragga naafaka ah kana mid ah wariyaasha ka howlgala idaacadaha ama mid ka mid ah idaacadaha ku yaala magaalada Kismaayo. Cabdisalaan ayaa dabcan barnaamijka maanta martii noogu ah isaga ayaan dabcan noloshiisii day noqoto kacakufkii iyo sidoo kale noloshiisii bilowgeediba aan inta badan barnaamijkeena gundug uu ku noqon doonaa noqoto waxbarashadii iyo qaybaha kala duwan meelihii uu ka soo shaqeeyay guud ahaan. Cabdisalaan marka hore ku soo dhawow barnaamijkan gaarka ah. waa madsanta Cabdisaaq ku dhaw. waayahay Cabdisalaan haddii aan barnaamijkeena dabcan sii guda galno waa kuma Cabdisalaan Maxamuud Shire. Cabdisaaq oo mar labaad iyo mar saddexaad adiga iyo kaameramanka waa idin mahadcelinaya. waa kuma Cabdisalaan hadii la runtii waxay noqonaysaa barnaamij aad u dheer oo aan guda galno laakiin waxaan soo koobaynaa waa tahay Cabdisalaan magacaygu wuxuu waa Cabdisalaan Maxamuud Shire. waxaan ku dhashay tuulo hoos timaado degmada Jamaame gobolka Jubbada Hoose. waxaan ku soo barbaaray dugsiga Quraankana aan ku bilaabay magaalada Kismaayo xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka Jubbaland. aan ogaaday in qof bini'aadan ah ama naafaba ha ahaado maadaama aan ahay qof naafa ah lixadkiisana aysan dhamaystirnayn aan ogaaday in qof naafa wax baran karo. 2005 soo bilaabay iyo 2004 dhamaadkeeda in ay ahayd hadda ma xasuusto waa labadaas mid. khayr Allah siiyo nolol ahaan heerka maanta aan taaganahay qofka iga dhigay Allah ka sogo waa abtigii Cabdiqani Sheekh Umar abtigii hooyadii la dhashay ayaa marka igu imaan magaalada Kismaayo. wuxuu igeeyay xeryaha mid ka mid ah xeryaha qaxootiga ee Dadaab Kenya xeryaha qaxootiga. halkaas ayaa waxaan ka bilaabay waxbarashadeedii quraanka halkaasaan ku sii watay madrasa iyo iskuul xaggan ka qaatay ilaa heer markii dambe aan ku soo dhameeyay guud ahaan baa waxbarashadeeda waddankaas Kenya mid ka mid ah iskuulada sare ee runtii aadka lagu jecel yahay dadka aragga la ay wax ku bartaan. almost nolosheeda 8 sano oo ka mid ah ama badideeda waxbarasho waxaan ku qaatay boarding ama Soomaalida waxay u taqaanaan college. waayahay meelaha meeshan caruurta lagu xareeyo ay jiifkana ka helaan sidoo kale cunada ka helaan waxna ku bartaan oo aysan xaafad ama meelo kale aysan aadi karin. waa meel runtii jiif ah Soomaalida college dhahda anaga xagga markii meelaha wax ku barno waa boarding. waa jiif systemka hadda Kenya ka jiro inkastoo wax laga bedelay 3 xilli waaye. waa 3 bilood loo fasaxa. waa tahay 3 bilood la dhigtaa bilaa la fasaxa. marka waa boarding meesha waa seexanaysaa cuntadii ka cunaysaa galaaskii waxbarashadii wax dhan waa hal xarun ku yeelan. marka halkaasna aan wax ku soo qaatay marka waana meel runtii markii si loo fiiriyo nolosha ay aad u adag tahay laakiin ay waxbarasho taalo. waa tahay waayahay Cabdisalaan waad mahadsan tahay waan ka mahadcelinahay sida wanaagsan oo soo koobtay waa kuma Cabdisalaan dadku inta badan maadaama aad ka soo sheekaysay taariikhdaadii nololeed dhankii dabcan meeshaad ku dhalatay iyo barbaarintaadii iyo kacakufkaaga inta badan arag la'aanta ma waxaad ku dhalatay baa waxyaabo kala jira xanuuno kale maxaa sababay araggaaga aways? maya arag la'aanta kuma dhalan runtii laakiin waxaan dhihi karaa ku dhawaad nolosheeda oo dhan sidaan ahaa maxaa yeelay 3 sano iyo 4 sano meelahaas aan jiray maantana heerka aan taaganahay ama qofka aan ahay qof walba wuxuu aad buu u dhahan karaa. waa tahay marka xanuun runtii dabcan isoo wajahay buu ahaa waqti dheer aan xanuunsana kadib ayaa runtii alxamdulillah indhaha lagu wareegay. waana alxamdulillah waa lagu qasban yahay in lagu sabro. waayahay waa tahay waan ka gudbaynaa Cabdisalaan waxaa tahay qof dabcan aragga naafaka amaba
si kale haddaan u dhigo baahiyo gaara qaba ama dadka baahiyaha gaarka ah qaba ka mid ah ama lixaadkooda uu dabcan dhammaystirnayn sidoo kale waxaa tahay wariye shaqeeya oo barnaamijyo iyo xoga soo saaro anagoo aan ognahay shaqada warbaahinta inay tahay mid adag gaar ahaan waqtiyadan dambe ee lagu jiro amaba qofka joogaba wadamada ay dabcan colaaduhu ragaadiyeen ama ay ka jiraanba colaado inuu qofka wariyaha oo caadiga ah ee dabcan uu ku shaqeeyo ay adag tahay adiga oo naafo ah oo gaar ahaan weliba aragga dabcan naafo ka ah oo lixaadkaada maanta uusan dhammaystirnayn maxaad ku dooratay warinimada runtii waa su-aal muhiim ah anigoo og in wadan ahaan wadankeena uu ka mid yahay wadamada warbaahinta ay ku shaqeyso ugu adag uu ka mid yahay haddana waxaan doortay aniga kacabsalan ahaan in aan saxafi noqdo haddana wadankii aniga macaahideeda saxaafadda ugu horreeyay aan ku bartay wuxuu ahaa wadan nabad ah laakiin arrinta cajiibka ayaa waxay tahay in aan haddana doortay in aan wadankeyga intaan dib ugu soo laabto aan haddana u shaqeeyo shacabkayga aan u shaqeeyo ama bulshada aan u shaqeeyo haddii cabdirasaaqow su-aasheeda aan dib ugu laabtay oo ah maxaa kugu dhaliyay in aad ku laabatid ama maxaa sababay oo kale runtii 3 sabab unbaa jirta oo aniga kacabsalaan ahaan aan isdhahaya cabdisalaanow meesha ugu horeyso oo 3daas qodob aad ku hirgelin kartid waa warbaahinta warbaahinta dadyowga qaar waxay ka aaminsan yihiin meelo runtii xun iyo waxyaabo fikrado qaldan ka aaminsan yihiin laakiin ma aha oo waa qof walba siduu asaga ka dhigto 3da qodob oo aniga igu qasabtay koow qodobka ugu horeeyo waxa waaye markii aad runtii aniga meesha wax ku barto wadan shisheeye wadankayga ma ahayn waxaad garan kartaa xilliyadii weli ugu adkaana waa ku aaday oo ahaa wadankeena in qayb ururo iyo ururo diimeed iyo dowlad ay isku dhegnaayeen isku dhegnaayeen 7 iyo 8 haddana 2010 waxaan ku aaday 2010 waxaan ku aaday waddankayga scholarship-ka ugu badnaa scholarship-kii ugu horreeyay aan helay gudaha waddanka Kenya dad ajnabi wax ku dhex baranayay oo mararka qaar ani kali aan Soomaali ka ahaa waxaa dhacday marka in Soomaalida markii meelaha qaar ay joogaan laba qof Soomaali ah haddii ay isla istaagto in loo fiirin lah maxay sameyn rabaan ma wax bay qarxin rabaan ma qosbay yani siyaabo kale loo turjunto siyaabo kale loo turjunto qodobkaas waa qodobkaas oo ah Soomaalida sawirka adduunka hadda ay ka haysato in aan bedelo oo wanaag aan ku bedelo labo waa dadka naafada ah maadaama aniga aan ahay qof naafa waa tahay cabsalan marka maadaama dadka Soomaaliyeed markaad fiirisid dadka qaar in dadka naafada milxaadkooda uusan dhanayn inay faquuqaan oo mararka qaar ay kala kulmaan culeysyo kala duwan in qofkii la fogeeyo ama qofkii lagu dhiirigeliyo inuusan ilaa xad uusan waxba qabsan karin oo lagu tilmaamo qof aan waxba ahayn oo aanan waxba markaa qabsan karin gaar ahaan bahda adigu hadda aad ka mid tahay dadka aragga markaasi heela marka faquuq noocee ah baad kala kulantaa bulshada se maxay kugu dhahaan markay ku arkaan adigoo shaqooyin dadka kale caadiga ah ay ku adagtahay mararka qaar qabanaya markay ku arkaan cabdirasaaq oo ku soo wada qodobka labaad wuxuu yahay ugu qasbay in aan saxaafadda ku soo biiro in naafada Soomaalida ah meel walba ay joogto in loo arko in ay yihiin dad aan waxba qabsan karin in macnaha niyadda laga jabiyo la dhaho wax ma baran kartid guriga iska joog saas laguma haweliyo qofka ugu roon way fiican tahay waa meelaha asaasiga qofka islaamku waxbarashadiisa ka bilaabo qofka ugu roon waxaa la geenayaa dugsi quraan halkaas waxa dhiga lagu mahaweliyo hadii la dhihi lahaa qofka quraanka hal xifdisiyo hal la bara diinta aad bay u fiicnaaneed laakiin dadka ayaga waxay ka tahay
mahweele bisa dadka bulshada ku dhex jiro aniga markii ka cabdisalaan ahaan markii iskuulka intaana bilaabin ka hor ma aaminsan runtii inaan wax qori karo waxaana akhrin karo laakiin ilaahay ka soo go'tiga ayaa taas u sahlay qodobkaas asaga ayaa marka waxaan u qaatay in aan saxaafadda ku biiro in aan dadka tusi karo in dadka naafada ay wax qabsan karaan wax tari karaan shaqaysan karaan bal mararka qaar ayaga ay dadka caawin karaan qodobka saddexaad oo iigu muhiimsan mararka qaar aan dhihi karo waa hooyooyinkeena Soomaaliyeed burburka wadanka wuxuu burbursan in ka badan 30 sano intaasi sano oo wadanka uu burbursan yahay ayaa waxa dhacday marka in ragga ay ku mashquuleen balwad ay ku mashquuleen in ay qoryo qaateen xitaa 99% burburka wadanka ragga Soomaaliyeed marka taasi anoo ka duulaya ayaa marka waxa igu dhalatay in hooyooyinka Soomaaliyeed maadaama 98% ay wadanka ayaga heerka isu gaarsiin ilaahay ka soo in haddana xuquuqdoodii aan u doodo aan anigoon ka tilabsanayn sharciga islaamka cabdirasaaq intaas ugu badan inta ugu qasabtay ama waxyaabaha sababay in aan ku soo biro saxaafadda waayahay waxaad sheegtay dabcan in hooyooyinka Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin dadka inta badan ugu dhiirigeliya inaanan ka niyad jabin oo bulshada inteeda kalena aan dabcan ku dhiirigelin dadka baahiyaha gaarka qabo ay yihiin dad kale caadiga ah dadka kale waxay qabsanayaan dabcan qabsan karaan waayahay ma jira marka waxa tahay wariyahana inta badan dadka qaar waxaa jira siyaabo kala duwan oo qofku saxaafadda ugu soo biiro ama ahmiyad gaar ah iyo inuu doonayo inkastoo maanta waqti xaadirka lagu jiro baasha dhan kale loo gadiyay laakiin ma jira dad aad ama kugu dhiirigeliya dhanka saxaafadda oo maanta ku dayato jeclaan lahayd inaad hiigsato ama iyagoo kalaba aad noqoto cabdirasaaq horta su'aal fiican markaan ani saxaafadda ku horta aan baranayay horta dadkeena oo dhan way ka soo horjeedeen familkeena oo dhan ba way qoyska qoyskayga oo dhan ba ilaa hadda horta ma dad waxaa jiro ka soo horjeeda in aan saxaafadda ka shaqeeyo waxaa dhacday in saxaafadda aan si qarsoodi aan ku bartay dadka qaar aysan si wada ogeen sax waxaa kaliya oo horta gacanta igu siiyay saxaafadda in aan barta waa wiil hawrartay ay dhashay oo halkan runtii aan uga mahadceliyo hadda wuxuu joogaa wadankaasi Mozambique uu joogaa waa qofkii u dhahay Cabdisalaan haddii ay ka go'an tahay in aad saxaafadda gashid ama aad ka shaqaysid way ku furan tahay asaga ayaa waliba igu xiray qofkii ugu horeeyay iskuul igeeyay Nairobi aan ahayd meesha iskuulkayga ugu horeeyay aan ka bilaabay markii aan ka soo baxay macaadkayga ugu horeeyay saxaafadda aan ka soo baxay waliba anoo shahaadadii wata aan qoyskayga oo la imaaday waaba la yaabayba waxa ma xasika ma falanta waxaan ku dhahay caadi waan ku dhahay waa wax la qabto waxyaabaha ugu fudud ka mid ah bulu dadka qaar ay ka dhigaan waa mid adag waa mid saane waa sax wadankeena ku kamid yahay meelaha ugu adag ama xaaladaha ugu adag ay warbaahintu ku shaqeyso laakiin markii si loo fiiriyo adiga sida ka dhigatay hor saxaafadda ku xiran tahay marka bulshada way jiraan had gartan aan taaganahay dad igu dhiirigeliyo Cabdisalaan hor u soco iyo dad dhaho maya way ku adagta iska dhaaf marka waxaa jirto oo hadda su'aashaada ku jirtay oo aan rabo in ka jawaabo ma jiraan dad aad ku dayatay waa jecesha in harkooda kala gaarto runtii dabcan qof walba hadda adduunkan joogo way fiican tahay in qof uu hiigsado uu dhaho qofkaas meeshuu gaar ma gaari doontaa laakiin dabeecadaha qaar dadka qaar ay leeyihiin in aad raacdid ma wanaagsano ana marka qofka aan jeclaa oo waliba yaraanteeda xitaa aan ku dayan jiray anoo xitaa aan aaminsanin in aan wax baran karo ayaa wuxuu ahaa runtii qof runtii aabbaha saxaafadda Soomaaliyeed lagu magacaabi jiray ahaa qof degan Soomaalida u siman qabiilna aan garanayn dabcan waana Axmed Xasan Ooki Allah naxariisto
وقف كلي أم وريها كلي أم كده سنجروا وياي markay noqoto marka maadaama wariyaa tahay barnaamij soo saara tahay xoga iyo dabcan warar kale oo wareysa sida kugu soo gashaa raadinta xogahaasi iyo soo saarista barnaamijka gaarka dabcan aad ka sii dayso warbaahinta Cabdirasaaq warbaahinta horta waxaan aniga ka howlgalaa mid ka mid ah warbaahinta ku taal magaalada Kismaayo gaar ahaan warbaahinta ku hadasha afka dowladda gobolka Jubbaland radio Kismaayo waxaan ka ahay barnaamij soo saare soo jeediyay aniga ka wax walba ana isu ah marka qaar xitaa wararka waxa ii fudud in intaan raadiyo markay meel wax ka dhacaan oo kale in aan daba galo wixii xaqiiqadooda aan soo saaro taas marka waxa ii fududeeyay guud ahaan tiknoolajiyada casriga ee maanta dunida ay isticmaasho oo qof walba oo bini aadan u isticmaali karo walow la leeyahay dadka naafada ah waliba gaar ahaan dadka aragga leh si ku isticmaala la isweydiiyo laakiin waa mid fudud la isticmaali karo runtii waliba dadka kale xitaa qaar saysta u isticmaalna anagu isticmaalna waayo way noo fududahay haddii qof walba oo bini aadan ah oo wax barto horta adduunka wax dhibay male way marka sidee kugu fududahay bay dadka qaar laga yaabaa inay isweydiiyaan maadaama qofkii matalan hadda adoo kale qof waxa tahay anka aragga naafaka baraha bulshadana adeegsigooda ku xiran yahay waa maqal iyo muuqaal oo qofka inuu wixii arko kadibna uu sidaas ama daawado ama dhageysto ama xogtiisa uu ku raadiyo marka adeegsigeeda oo kale gaar ahaan shakhsiyan adiga sidee kugu fududahay ama maxaad ka adeegsataa oo gaar ah oo ku fududeeya ama ka caawiya taasi waa mid aad u fudud baraha bulshada horta waxaan ahay qof ka maqan maagi waa qof maalintii oo dhan ku dhex jira waxa ka socda iyo xogaha ka socda og bal aniga ba kamid ah waxaan ahay youtuber page sidoo kale waa leeyahay runtii waa soo bandhigi doonaa inuu alla idmo waxyaabaha inoo fududeynaan waxa kamid ah maadaama aan nahay dad arag la muuqaalkan arki karin waxaa jira telefoonada wax leeyihiin programyo Samsung kan uu leeyahay iPhone kan uu leeyahay telefoonada kale xitaa way leeyihiin laakiin labadan telefoon ugu fudud wax dadka arag la isticmaalaan codada jiro cod ku xiran inta garanayso way garanaysaa inta aan garanayn insha Allah waxaan u soo bandhigi doonaa ayadoo muuqaal ah anagu sameyn waa tahay computerka sidoo kale asana codda lagu xira uu leeyahay program walba aad rabtid marka waa taabanaysaa asaa ku sheegayo aad tusaale ahaan WhatsApp ko kale ana isticmaalo cod iyo isticmaash ma laha Facebook oo kale YouTube dabcan xogaha marka la raadinayo ma ahay in qofku raadinayo hada xogaan raadiya markan dhahayo dadka qaar waxay u haystaan in ay la ii raadiyo laakiin ma dhacdo ana raadsado waxaana ii fududeena ilaahay ka soko tiknoolajiyada casriga ee maanta dunida laga isticmaalayo si telefoonka kale telefoonkaas oo kale codad ku xiran computerkayga codad ku xiran wax walba taas ay fududeena waa tahay way absalan marka uu dambeyntii heerkan maanta aad soo gaartay dhanka ha noqoto taariikh nololeedkaadii koriimadaadii waxbarashadaadii heer kala duwan soo gaartay ilaa hadda maanta oo aad tahay wariye oo dabcan u hadlaa dadka codkooda aan meel fog gaarin ama wax noqoto dadka baahiyaha gaarka qaba ama dadka kale caadiga wariyuhu in badan buu dadka kala duwan u waramaa ama xogta iyo wax walba marka ay u baahan yihiin u gaarsiiyaa marka yaad si gaar ah ugu mahadcelinaysaa oo kaa caawiyey inaad maanta heerka aad soo gaarto runtii waa su'aal aad muhiim u ah laba u kala qaadayna laba u kala qaadayna waxa tahay guud ahaan waxbarashadeedii haddana waxaan ka sii saari doonaa saxaafadda guud ahaan horta waxbarashadeeda Cabdirasaaqow mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar walbana ku celcelin doonaa ilaahay ka soko heerka aan maanta taaganahay waxaa mas'uuliyadeeda iska leh abtigay hooyada dhashay Cabdiqani Sheekh Cumar oo runtii aan halkan ka salaamayo asaga iyo reerkiisa dhammaanna waxaan u rajaynayaa in
meesha meel ka fiican oo jannatu firdaws in uu ilaahay ku abaalmariyo asagaas runtii waxbarashadeeda aan mas'uulka ahaa noloshadii inay heerkan soo gaarto ilaahay ka soo asaa mas'uulka ahaa aad buuna ugu mahadsan yahay tan saxaafadda markii aan u soo laabtana runtii waxaa dhacday markii aan wadankan dib ugu soo laabtay in waxyaabo caqabado badan iga hor imaadeen oo ah dhanka helista shaqada waxay ugu qaadatay in aan shaqadan aan helo 2 sano kamid ugu qaadatay oo saxaafadda aan helo ana wali aqoonteedii leh aan aaminsanahay dhalinyarada ka shaqeynaysay markaas joogtay in badan oo kamid ah aqoon ahaan aan ka sareeyay anoo ku faaninin hadday noqoto dhan saxaafad iyo dhanka iskuulkaba haddana waxaa dhacday oo aan ogahay in la qaatay dadyow aan aqoon saas lahayn laakiin saxaafaddii wax uga bilaaban yihiin warbaahinta aan booqday ama ha noqoto tan la iska arko ama tan kale ee la dhegeysta ha noqoto runtii guud ahaan markii aan ugu tagay xafiisyadooda ama xarumahoodii si dadbana maya la yidhaahdo si toos horta la ima dhihin maya laakiin si dadbana la ii diiday marka waxaas oo kale sababaha inta ugu badan ee loo diiday ama looga cagajiday maxay ahayd ay kula tahay waxa looga cagajiday Cabdirasaaq oo iska caddahay oo waxaa la ii fiiriyay in aan ahay qof naafa ah in aan shaqeyni karin in macnaha aan waxba qaban karin oo anigi aqoontii heerkaas lahaa ama aan iraado ahaa waxa la iga doorbidaya qof aan heer ahaan aad u hooseeyo walow Soomaalidu dhanba ay ka dhacdo markii ugu dambeysay waxaan imaaday xarunta idaacadda Radio Kismaayo oo markaasi runtii uu ku cusbaa oo xoogaa adaca waxyar ka hor uu imaaday agaasimo Xasan Nuur asaga marka barnaamijkii wixii dhan aan u bandhigay ballama uu ii qabtaa jirtay ana marka waxaan go'aansaday in aan daba galo raadiyo aakhir wuxuu i siiyay shaqadii Janiski i siiyay Janiski aan ka faa'iideystay asaga ayaa runtii haddana mar labaad qofkii labaad in maanta saxafi aan ahay wariye la garanayo magaalada Kismaayo laga dhex garanayo saxaafadda ka dhex muuqdana aan ahay ilaahay ka soo qaadana waxaan uga mahadcelinayaa agaasimo Xasan waa tahay dawadayaal inta ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka gaarka ah ee diiradda ku saaraynay Cabdisalaan Maxamuud Shire oo ah wariye markaasi dabcan aragga naafaka kana howlgala mid ka mid ah warbaahinada ku yaala magaalada Kismaayo Cabdisalaan iyo taariikhdiisa nololeed iyo haday noqoto korriimadiisii iyo kacakufkii dabcan noloshiisa bilowga iyo sidoo kale shaqada uu maanta haayo waxyaabaha markaas dabcan ka saaciday maadaama bulshada Soomaaliyeed badi ay yihiin dad inta badan dadka qaar faquuqa dadka naafada amaba dadka araggooda markaasi uusan dhamaystirnayn ama bilixaadkooda uu dhantaalan yahay inta ku kulmayno barnaamijkiisa xiga dawadayaal